kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka xaqiiqsan media qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo wada dadaalo lagu xalinayo khilaafka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya dowladda federaalka oo soo faragelisay khilaafka maamulka gobolka Banaadir iyo hanti dhowrka qaranka iyo amar la siiyay gudoomiye Yariisow gudoomiyaha golaha shacabka oo banaanka soo dhigay arin xasaasi ah oo wax badan ay qarin jireen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo tallaabo lama filaan ah qaaday kadib hadalhaynta iscasilaadiisa madaxweynaha Soomaaliya oo shaaciyay qorshe ka farxiyay ardayda Soomaaliyeed akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxa ugu doorka roon mid kamid ah laba ruux oo basaasiin u ahaa Imaaraadka Carabta oo isku dhex dilay xabsi ku yaala Turkiga iyo xogo dheeraad ah oo laga helay qaabka uu isku dilay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay dadaalo lagu doonayo in la isugu soo dhaweeyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka ragaadiyay wada shaqeyntooda Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay kulamo gaar ah la qaatay gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya golaha aqalka sare iyo golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi kuwaas oo kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka xilligan u dhaxeeya labada gole waxaa hagad ku jira wada shaqeyntii aqalka sare iyo golaha shacabka waxaana go'aankaasi gaaray aqalka sare khilaafka labada aqal ayaa salka ku haya arrimo la xiriira dastuurka gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa marar badan sheegay inay isku dayeen inay la fariistaan gudoonka golaha shacabka balse ay ku guuldareysteen madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda dadaaladaasi galay lamana oga halka ay wax ku dambeyn doonaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo faragelisay khilaafka maamulka gobolka Banaadir iyo hanti dhowrka qaranka iyadoo amar la siiyay gudoomiye Yariisow wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in xafiiska hanti dhowrka qaranka uu xaq u leeyahay inuu baaritaano ku sameeyo dhaqaalaha ay dowladda dhexe ku kabto maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir wasaaradda ayaa madaxda gobolka Banaadir ku amartay inay xafiiska hanti dhowrka u ogolaadaan baaritaankaasi isla markaana lagu garabsiiyo waraaq ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku soo aadaysa xilli xafiiska hanti dhowrka qaranka oo xayiraad ku soo rogay dhammaan akoonada maamulka gobolka Banaadir sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ku amartay maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar inay ku gacan siiyaan hanti dhowrka qaranka inuu baaro dabagalna uu ku sameeyo dhaqaalaha lagu kabo miisaaniyadooda ay ka helaan dowladda federaalka maalin ka hor ay ahayd markii hanti dhowrka qaranka uu amar ku bixiyay in la xiro dhammaan akoonada maamulka gobolka Banaadir si baaritaan lagu sameeyo xisaabaadka gobolka iyo dhaqaalaha ay helaan halka ay ku baxaan warar aan helayno ayaa sheegaya in duqa Muqdisho uu ka madax adeegay amarka ka soo baxay hanti dhowrka qaranka sidaasina wasaaradda arrimaha gudaha ay ku soo faragelisay dhanka kalena gudoomiyaha golaha shacabka ayaa banaanka soo dhigay arin xasaasi ah oo marar badan ay ka gaabsadeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horeyn kulanka furay ayaa sheegay in golaha kala fadhiga shanaad ay horyaalaan howlo fara badan oo ay ka mid yihiin sidii dalka loogu diyaarin lahaa hanaan doorasho oo qof iyo cod ah sidaas daraadeedna xildhibaanada golaha looga baahan yahay inay ilaaliyaan waqtiga kulamada golaha si loogu guuleysto howlaha golaha horyaala intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa akhrinta labaad marsiiyay hindise sharciyeedka shirkadaha ganacsiga waxaana golaha ka hor akhriyay xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsiga dhaqaalaha warshadaha iyo maalgashiga ee golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa xubnaha guddiga weydiiyay su'aalo ku saabsan hindise sharciyeedka shirkadaha ganacsiga gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka soo xiray ayaa xildhibaanada golaha uga mahadceliyay ka doodista ajandaha maadaama uu aad dalka uu muhiim ugu yahay sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa loo qeybiyay xisaab xirka sanadka 2017 madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay qorshe ka farxiyay ardayda Soomaaliyeed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kormeeray imtixaanaadka dugsiyada hoose ee dhexe ee dalka ayaa tilmaamay in dowladda ay dadaal muuqda gelisay dib u soo nooleynta waxbarashada dawliga. madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda dugsiyada dawliga ah iyo ardayda dhigataba waxa uu ka dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Faysal Cumar Guuleed, iyadoona uu faray xukuumadda inay ka shaqeyso sidii ugu hirgelin lahayd dhammaan muwaadiniinteena fursado waxbarasho tayo leh. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waqti kooban la qaatay ardayda dugsiyada wiilwaal kuwaas oo u fadhiyay imtixaanka hoose dhexe, waxaana uu kula dardaarmay inay rumeeyaan rajada qoyskooda iyo midda qaran ee laga sugayo. dhankooda ardayda uu booqday madaxweynuhu ayaa uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey in kormeer iyo qiimeyn ugu yimaado, waxaana ay sheegeen in dardaarankiisa iyo dhiirigelintiisa uu sameeyey ay qiimo weyn u leedahay. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaa kormeerkan ku helinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Faysal Cumar Guuleed. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah la qaatay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, gaar ahaan dib u dhiska ciidanka iyo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka. waxaan gudoomiyey shir aan isugu yeeray taliska ciidanka xoogga dalka iyo wasaaradaha gaashaandhigga iyo maaliyadda oo aan uga hadlayay dib u habeynta ciidamada iyo howlgallada socda ee ka dhanka argagixisada, ayuu yiri ra-iisul wasaare Kheyre oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebooka. dowladda federaalka ayaa wada howlgado lagu xaqiijinaya amniga dalka, kuwaas oo ay si wada jira u fulinayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa midowda Afrika. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay ahayd ay soo baxeen warar sheegaya inuu aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. ugu dambeyntiina akhbaaraadka caalamka haddii aynu eegno, mid ka mid ah laba ruux oo basaasiin u ahaa Imaaraadka Carabta ayaa isku dhex dilay xabsi ku yaala Turkiga, iyadoo xogo dheeraad ah ee laga helayo qaabku isku dilay. mid ka mid ah laba ruux oo laga shakiyay inay u basaasayeen Imaaraadka Carabta ayaa isku dilay xabsi ku yaala dalka Turkiga, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dowladda ee dalkaasi. wararka dhimashada ruuxan oo maalinimadii shalay lagu daawacay website-ka Habertug ayaa lagu sheegay in ninkaasi uu isku daldalay xarig xili uu ku sugnaa xabsi lagu magacaabo Zileviri. wakaaladda wararka Andaluu ee dalka Turkiga ayaa cadaysay dhimashada ruuxaasi, waxaana warku intaa ku daray inay socdaan baaritaano la xiriira qaabka uu u dhacay dilka iyo waxa sababay. waxaa jira warar sheegaya in labada nin lagu eedeeyay inay u basaasayeen Imaaraadka Carabta oo midkood dalka Turkiga tagay bishii Oktoobar sanadkii 2018 maalin kadib dhimashadii wariye Jamaal Khashoggi, halka ruux kale la tilmaamay inuu mar dambe galay Turkiga. guud ahaan daawadayaal intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa warkii aad kala socoteen janalka Xaqiiqsan Media. ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyay aad qaadanaysaan Soomaa. waxaan idin rajeynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno bundada ugu fiican. macnaheedu waxay tahay inaad aad u shaqayseen, aad wax u barateen,
xalay iyo habeen hore iyo kulli inaad soo jideen Soomaa oo qof walba halkan fadhiyo uu rajeenayo inuu helo bundada ugu fiican soo sasma anna waxaan idin rajeenayaa bundada ugu fiican inaad heshaan maxaa yeelay waxbarashadu waa qofka noloshiisa waa indhaha qofka